Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xalqadda sagaalaad ee taxanaha Falastiin. Waxaan xalqadan aanu uga hadli doonaa dhisidii degsiimooyinka Yuhuudda ee ay Israa'iil samaysay intii lagu guda jiray waqtigii nabadda muddadii u dhaxaysay sanadkii 1995 ilaa 2000. Geedi socodkii nabadda ayaa socday oo maamulka qaranka Falastiin ayaa la aasaasay si uu hordhac ugu noqdo samaynta dowlad Falastiin sida ku cad heshiiskii Oslo. Si kastaba ha noqotee, Israa'iil ayaa sii waday damaceeda ah inay kordhiso tirada dadka aaggan degan ee Yuhuudda ah. Tusaale ahaan, sanadkii 2000 waxay kala ahaayeen 176,000 oo Yuhuud ah oo ku noolaa Daanta Galbeed, 6,900 oo ku noolaa Marinka Ghaza, iyo 173,000 oo Yuhuud ah oo ku noolaa bariga magaalada Qudus. Marka lagu daro 17,000 oo qof oo deganaa xaafadaha Yuhuudda iyo hareeraheeda xudunta magaalada Qudus, tirada guud ee Yuhuudda dhulka deganeed waxay noqonaysaa 372,900 oo qof oo Yuhuud deganayaal ah, taasoo ka dhigan in tirada dadka Yuhuudda ah qiyaas ahaan ay ahaayeen 14.9% dadkii ku noolaa Daanta Galbeed, halkaas oo loo qorsheeyay inay noqoto dhulka ugu muhiimsan ee dowladda Falastiiniyiinta. Waxaa xusid mudan in deegaameynta Yuhuudda ay ahayd isha ugu weyn ee khilaafaad ee wadaxaajoodyadii u dambeeyay. Gabagabadu waxay noqonaysaa in Israa'iil ay qorsheynayso inay ku adkaysato joogitaankeeda Daanta Galbeed iyo Marinka Ghaza xitaa kadib marka la soo gabagabeeyo heshiiska nabadeed ee Falastiiniyiinta, si ay Israa'iil u sii wado ka faa'iidaysigeeda kheyraadka dhulkan iyo biyihiisa, iyo in la abuuro degsiimooyin Yuhuud ah si loo kala gooyo magaalooyinka Falastiin iyo si looga hortago sii socoshada nooc kasta oo jiritaaneed ee dadka reer Falastiin. Israa'iil sidoo kale waxay go'doomin dadweyne oo dhammaystiran ka samaysay agagaarka magaalada Qudus, iyadoo laga go'doomiyey magaalada barakaysan iyo dadka maxalliga ah ee Carabta. Falastiin inteeda kale, bal fiiri go'doominta dadka ee ay Israa'iil ka abuurtay agagaarka Qudus. Joogitaanka Yuhuudda ee Qudus wuxuu damaanad qaadayaa Israa'iil joogitaankeeda militari ee ay ku ilaalinayso muwaadiniinteeda Daanta Galbeed iyo Marinka Ghaza, xitaa haddii khilaafkan ay heshiis siyaasadeed oo kama dambaysa kala saxiixato Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay u dhaqantaa sidii gumaystaha, kaasoo abuura carqalado iyo xanibaado si loo cadaadiyo dadka la gumaysto si ay u sameeyaan tanaasulaad dheeraad ah. Sidaasoo kale ayay samaysaa Israa'iil, iyadoo ku andacoonaysa inaysan ahayn mid xaq ama wax ku ool ah in Falastiiniyiintu ka dalbadaan Israa'iil inay ka daadgurayso Yuhuudda tirada badan ee ay dhulkooda ku deegaamaysay. Heshiiskii afraad ee Jineefa ee u dhexeeyay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil kuna saabsanaa xaaladda dadka rayidka ah inta lagu guda jiro dagaalada wuxuu leeyahay sidan: awooddii dhul la wareegta ma musaafurin karto dadka maxalliga ah, umana soo wareejin karto qaybo ka mid ah dadkeeda rayidka ah dhulka ay qabsatay. Qodobka 49aad farqadiisa 6. Sidaa daraaddeed, ma waxaan aqbalnaa sharciga caalamiga ah iyadoo qeexitaan kasta oo aan qaadanno uu u hoggaansamayo ficilka Israa'iil ee deegaameynta Yuhuudda loogu samaynayo Daanta Galbeed oo ay ku jiraan magaalada Qudus iyo Marinka Ghaza. Xaqiiqdii, arrinkani waa mid sharci darro ah iyada oo aan loo eegayn inta qof ee Yuhuudda ah ee halkaa ku nool. Sidaa daraaddeedna, lama samayn karo degsiimooyin nabdeed oo khilaafka lagu xalliyo, yacni tiradooda qiil ma siinayso jiritaankooda. Intaa waxaa sii dheer, qaraaro badan oo Qaramada Midoobay ay soo saartay waxay u arkeen degsiimooyinka Yuhuudda ee dhulka Falastiin kuwo sharci darro ah oo aan la aqbali karin, waxayna dalbadeen in degdeg loo joojiyo. Intii lagu guda jiray hirgelinta qorshayaashii deegaameynta Yuhuudda, Israa'iil waxay qaaday tallaabooyin cakiran oo ay si sharci darro ah ugula wareegtay dhulkii Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay la wareegtaa nooc kasta oo dhulka Falastiin ah, laga soo bilaabo dhulka dawliga ah ilaa dhulalka dadka Falastiiniyiintu leeyihiin. Israa'iil waxay fulinaysay shuruucii degdega ahayd ee ay soo rogtay sanadkii 1945 iyo hannaankii la wareegidda hantida dadka maqan. Israa'iil iyadoo ka faa'iidaysanaysa shuruucda la xidhiidha la wareegidda dhulka, ayay si toos ah ugala wareegtay Falastiiniyiinta dhulalkii ay sida gaarka ah u lahaayeen. Waxaa intaa u helisay dhiig miirashadii ballaadhnayd ee ay Yuhuuddu uga faa'iidaysanaysay kheyraadka dabiiciga ah ee Falastiin, gaar ahaan kheyraadka biyaha. Dhiirigelinno kala duwan
oo maaliyadeed ayaa sidoo kale loo soo bandhigay Yuhuuddii lagu deegaameynayay deegaankaas si loogu dhiirigeliyo inay u guuraan dhulalka ay Yuhuuddu qabsatay, iyadoo lacagta deegaanada ay dhulalka uga gadanayaan qiimo dhimis loogu sameynayo. Waxaa sidoo kale loo soo jeediyay in dulsaar yar la saarayo kuwa deynta ku gadanaya dhulalka. Waxaa kaloo loo ballan qaaday adeegyo kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaankaas lagu horumarinayo in loo sameyn doono, oo ay Israa'iil miisaaniyaddooda bixinayso, iyo ugu dambeyntii in tiro badan oo dadka halkaa lagu deegaameeyo ka mid ah ay dowladdu shaqo siin doonto. Markii hore, dadka deegaameynta loo sameynayay waxay badiba taabacsanaayeen kooxihii bidixda ee jeegaanta siyaasadda Israa'iil, laakiin markii dambe Yuhuuddiimeedyada ayaa u batay dadkii lagu deegaameeyay magaalooyin dhowr ah iyo kuwii Qudus hareeraheeda la dejiyay. Inta badan Yuhuudda la deegaameeyay mar walba waa ay hubeysnaayeen, qaar badanna waxay ahaayeen isha ay ka soo burqanaysay dhibaatadii aadka u darneyd ee dadka Falastiin loo geysanayay. Mid ka mid ah Yuhuuddaas waxa uu ahaa Baruch Goldstein, oo ka mid ahaa dadkii degganaa magaalada Al-Khaliil, haddana loo yaqaano Hebron. Wuxuu dilay oo dhaawacay tiro badan oo rayid Falastiiniyiin ah oo ku tukanayay gudaha masjidka Al-Khaliil 25 Febraayo sanadkii 1994. Si kastaba ha noqotee, Yuhuuddii la deegaameeyay waxay si dhib la'aan ah ugu noolaayeen deegaanadii ay Israa'iil difaacaysay, waxayna xidhiidh toos ah la lahaayeen Israa'iil oo waxaa isku xidhi jiray waddooyin waaweyn, laakiin wax xidhiidh toos ah lama aysan lahayn Falastiiniyiintii hareere degganayd. Markii waddooyinkii noocaas ahaa la kordhiyay, Yuhuuddii la deegaameeyay waxay samaysteen qaab dhismeed nololeed oo ka duwan kii Falastiiniyiinta, gaar ahaan maadaama ciidanka Israa'iil ay ku dabaqayeen xeerar iyo sharciyo gaar ah degsiimooyinkaas. Maadaama degsiimooyinka Israa'iil sida caadiga ah la dhisay iyadoo la iska indhatirayo magaalooyinkii waaweynaa ee Falastiiniyiinta, waddooyinkii la dhisay si la iskugu xidho magaalooyinka cusub ee Israa'iil ayaa daboolay aag ballaaran oo ka mid ah dhulka Falastiin. Mid kasta oo waddooyinka ka mid ahayd xoogaa ayaa kor loo dhisay sababo nabadgelyo awgood, waxaana intaa dheerayd aag amni ah oo ku hareeraysan oo dhannaa 75 mitir oo dhinac walba ah. Hadda waad qiyaasi kartaa baaxadda dhuleed ee Falastiiniyiinta looga baahan yahay si loo dhiso waddooyin noocaas ah, gaar ahaan haddii aan maanka ku hayno inay jireen 200 oo mayl oo waddooyinkan oo kale ah oo horay ugu yaalay dhulka Falastiin, kuwaas oo kharash dhan $3 bilyan ayna markii dambe sii ballaadhisay dowladda Maraykanku. Nidaamkan xoojinta deegaameynta ee Yuhuudda waxaa ka dhalatay in lala wareego dhulal hor leh oo Falastiiniyiintu lahaayeen, waxaana korortay tirada geedaha laga jarayo dhulka beeraleyda ah ee Falastiiniyiinta iyo burburinta guryo badan oo ay Falastiiniyiintu lahaayeen. Tan iyo markii la saxiixay baaqii mabaadi'da Oslo ee sanadkii 1993 ee bilaabay geeddi-socodkii nabadda, ilaa iyo Agoosto 2001, in ka badan 70,000 oo akar una dhiganta 23,327.9 hektar oo dhul ah ayay Israa'iil la wareegtay. In ka badan 674 guri oo Falastiiniyiintu lahaayeenna way dumisay. Israa'iil intaa kuma ekaan ee 282,000 oo geed ayay ka rujisay daanta galbeed oo keliya. Xalqadanna maanta intaa ayay nooga eg tahay. Ugu dambeyntii, haddaad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.